ninkii bay isku noqdeen ninkii bay tiwa ku noqday goormeen dhaxmalka ma aqaano committee dhasaas soo noqday xalay waa ka daahir oo qac baa yeertay bay waxa xal soo qoray Soomaalidu waxay iska jecel yihiin mataqaanaa waxa ay ugu og xaqiiqda iyo runta ay waxay iska jecel yihiin views ma fahamtay asalaamu calaykum raxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan waa anigoo maxamed xasan youtube-ka daawanaysaanna waa TT Cadde Show haddii aad cusub tahay soo dhawo subscribe ila channelka haddii aad horey la joogteen videoga like saar waana ku mahadsantihiin mar walba daawashada fiidiyoda aan soo dhigo kuna soo dhawaada muuqaal cusub si hordhac barnaamijka baad kusoo aragteen farxiya axmed cadaawe farxiya fiska fanaanada weyn ayaa habeen war fuusta ku riixnay fuustadii haddii ay nahay reer social media way nagu soo celisay farxiya fiska waxay taagan tahay waxaas waxba kama jiraan waay marka waxaan rabaa inaad aragtaan marka hore fiidiyoga isku noqdeen ninkii bay tiwa ku noqday goormeen dhaxmalka ma aqaano committee dhasaas soo noqday xalay waa ka daahir oo qac baa yeertay bay waxa xal soo qoray Soomaalidu waxay iska jecel yihiin mataqaanaa waxa ay ugu og xaqiiqda iyo runta ay waxay iska jecel yihiin views ma fahamtay meeshaan horta waxa taqaanaa wallahi Soomaali meel loo wada ma gudbaan Soomaali meel loo wada Soomaalida naarta loo wadaana oo bish loo wadaana Soomaali wallahi yaan ku dhahay meel loo wada ma gudbaan sababta ay tahay waxa la mataqaanaa qofka xaqiiqda iyo runta isoo og Soomaalida naara loo wadaana asoo og runta oo haddana views wuxuu ku raadsanaa yacni noloshii dhanaaba waxay noqotay diintii dhanba waxay uga baxeen views Soomaali naara loo wadaa naar jahannama qaar diina fiiha abadan talaq ها أيقول أوك وحلا warkaas waa dhacay Soomaali ku daciidinay ودعايتها of course ودعايتها بتعيانا بالله في صوب لها شيء قبل عنك okay ninka sababta ninka loo soo daayay maxay tahay ninka sababta loo soo daayay maxay waxaan sanayaa aniga i weydii taayadu mooge ma asaga xanuunsanay ah farxi maxaa maqasho tashtub farxiya weydiiyo kiis ilana ku jira waa tan farxiyay معاك تفتح may horta aan farxi weydiin qabanaya ama maxaa tahay farxi weydiin farxi هذا أي شيء قاعد يصير ده مو ma ogid adiga ما ninka waa la soo daayay oo showgu ka qayb galaya oo dhigaayo yarkay ishay heesta hooyo qaada qaadad kaamil ma leedahay ها showgiisu ka qayb galaya markaas fahmi waa qof la xukumay maxkamad xukuntay sababta uu showgu qayb galaya dixta uu xanuunsanayo soo dhaqtar la geeyay maahay ما يعني وحا أوجا الجزء ده اللي قصة صاري أفر معلومات بعد ما كل وعد يا أخويا shal ala xad ninka shal uu soo galay أوكي okay hees miyaa jirta soo baxda hees miyaa soo qaadada cusub heesta ayaan waran ka hadlay heestan horay aan u qaaday inta isqabna ma horay aan heestan qaaday heesta inuu xabsiga soo ku jira diray oo dhaciidda la soo daaya la soo sheegay waa soo gala laafta afar kuna qof ay daawanaysa hay waana ka sheegay heestaas inay soo socoto ciidda oo laga dhigi rabo inaan aniga ninka aan isku noqonnay markaan oo asiga diray waa sheegay marka Soomaalida ayagoo wixii og runtii og maaragtay heestii soo baxday video aniga oo hees maxamed mooge oo ciidii maalintii ciidda duhurkii aan iska duubay oo tiktok ku jirana inta videoga la qaaday aa heestii oo lasoo geliyay youtube iyo laga soo postaa la soo saaraa laga dhigay inaan aniga iska soo duubay hay ma fahantay hay mood fiican ku jiro oo libaaxyada igu garaacay oo qolka ashad saaran oo aniga black man iyo challenge isaga bashaarayn hal mar sabuurta dhamad ha ka dhigeen daahir haye gabadhaada ma ka warhaysaa farxi fiska daahir haye iska waxay samaysay ma ogtahay yaa baa igu dhacay markaas waxaan ku caasiday inaan sii raacraacin warkaas inaan ku soo wicin inaan iska sheego because waa dareemaysa waxaas wax dhici kara inay naan doo si adag waxaan isku weysay u suurtagelaya taas waaba dilba halis dili waaye farxiya day socoto waa socota abta say u socota leh waa gadaal ma taqaan beenay fiiro midda farxi fiska nin ay kala tageen ay isfureen oo dili maxay say u noqon kartaa waa guuraynaa kuwa idil xataa ani gadaal ma fiiro kuwa idil xataa gadaal ma fiiro iska daa nin haddaad kala tagtaan waa candhuuf aad tuftay soo noqosho ma aqaani ba abta ani ha waxaan soo dadxay jisku ma xirada ciduun waa tagtaylo ha ya ما صلى الله عليه وسلم annaga abadilayna hadday soo laabato farxiya meel ay ku laabato iyo wax isaabay u laabato ma jirto xaga ag yaala marka dadkan waxaa waa mataqaanaa iyagoo wixii ogoo runtii og maaragtay ha inta wixii lasoo jarjaraa laysku geynaya markaasaa waxaa laleeyahay laysku noqday midda kale
annaga farxiyo sheega ku haya hadii hargeysa degad soo maha wallaahi wabilaahi oo tallahi muqdisho guriga ka ersayna runta kuu sheegaa hargeysa deganow guriga kugu yaalo laakiin muqdishona guri aan leedahay oo VIP laga dhisaa insha allah waa go-aan annaga iyo ganacsato iyo siyaasiyiin iyo dad kale oo baraha bulshada saameyn kule aan gaarno waayo oon ka wada hadalnay haddaad intagiisa mar hargeysa ka aad marna xamartada ku raaxayso gurigaasina maadaama gabadhii dee noogu caasirada aad taho xagga fanka waxaan rabnaa dadku waxay dhintaan caanka ah iyagoo la maamuusin dadkeennu qofka qiimo waxaa u yeesha dadkiisa u yeesha waxaan arkay fanaaniinta soomaaliyeed waagii hore dadku aysan social media waxay aqoonin waxaa nagu dhacday qofkeenna caanka ah meelo iska heestaa dadkiisu ma xiisaynayaan ma garab istaagayaan wixii wuxuu noqda qof maanta marka maalin hore xasan cali qeyrna waa wada hadlay rag kalena waa wada hadlay oo tijaaro ganacsataa bilaynayna kamid yihiin mustaq buxul waa wada hadalnay dad mataqaan niman mataqaana annaga xaggeena habagiista oo hadlo tijaarino bangiyo wax leh waxaan isku raacnay in horta gurigaa la dhiso marka hore insha allah waa farxiya axmed cadaawe farxiya fiska oo iska soo riixaysa fuustadii aan habeen hore ku riixnay farxiya waxay taagan tahay war ani meelaan ka tegay gadaal uguma ballaabtaba waaba sharci ii yaalay taagan tahay bal soomaaliyey warkaa bal arka war horta barnaamijka like ma saartay oo ma sheer gareysay oo haddii aa cusub tahayna ma soo dhowaatay oo subscribe ma dhahday janalka waa ku xasuusinaa oo subscribe ii dhah janalka oo like taha iloobin inta muuqaalka kuu baxo like taha iloobin oo saaxiibkaa kale barnaamijkan gaari lahaa ha ka qadinin farxiyo sidaa ogtihiinba habeen hore video waa ka sameeyey videogaasna wax kale ma ahayn baraha bulshada fariimo soo gaareen baraha bulshada markay fariimo soo gaareen anaga sida caadadeena tahay wixii banaanka la keenaan bayaaniyanaa wax kale oo qof aan ka soo qaadno oo gurigiisa asoo jooga isaga tagna isaga mara awaalna ma jirto social media wixii soo gaaro baan anaga falanqeynaa oo marba hadduu warka banaanka soo baxo war banaan yaalo wax qarsan maaha warka banaanka yaalaan falanqeyn iyo shuuteen ku darnaa marka farxiyo waxay taagan tahay war anii ninkaas iskuma laaban sheekadiisna wax kama ogi oo inuu banaanka joogaa xataa loo sheegaa waxay tiri aan waxaas waxba kama ogiba ayaan dhaweedaa madax u xanuunsaday 4 beri inuu banaanka joogo kadib lagu celiyaan ka warhaayay heestaanna aniga hees maxamed moogaa iska soo duubay hees mar hore ahayd asaa haystay wuxuu diray in maalinka ciidda heestaa lasoo deeyay life aan soo galay arrintaa waa beeniyey tir farxiyo maxaa leegu heestaa tir farxiyo maxaa leegu heestaa oo aniga leega mara awaawalaa waa maya midda kale waxay dhahday anig qof idilay ulaabashadiisa iska daaye kuwii xataa aan weligood far isaarin oo aan kala dhammaanay aan ku laabanay marka shaqooyinkan ama sheekooyinkan isku soo noqnoqoshada aan la kala dhammaanaynin hoolaan hore u aqaani ma ahanay taagantahay haddana ma bilaabaayey marka soomaali maxamed ha igu naar teginay taagantahay war cad mooho marka war cad meel loo laabto maa jirto farxiyo waxay taagantahay ha igu naar tegina marka anagana naar marabno absolutely allahuma najinaa min annaar allahuma najinaa min annaar intii muslin ah ilaahu naar ka badbaadi naar marabno marka farxiyo waxay taagan tahay dadkan oo editinka sameeyo iyo waxyaalahan isku rarakibo waayay taagan tahay qaladka anigana shako ku meliya arrintan aniga wiilkaas waa kala dhammaanay mana isu laabo doonno xukunaa ku dhacay xukunkiisa inuu dhammaystaan u rajeynayay taagan tahay bashbashii barwaaqo daari cali soon wuxuu taagan yahay annaga iyo ganacsado badan ayaa bashirnaba gurigan kuu dhiseenaaba farxiyo ilaaha ugu soo qaado muslim waaye qof muslim waaye ilaahay ha ugu soo qaado gurigan la sheegayo kuley inay runtaa ani lama ahan guri la dhisaayo waa waqti lacag badan u baahan marka umaleyn maayo beerlaxaws inay tahaan jeclahay marka farxiyo fiska wixiina kaa gaari raalli ka noqo haddii qalad ay tahay arrintaa oo been ay tahay waa kaa raalli gareynaha ileen hubsiimaa layidhi hal geel baa la siistaa hubsiimo hal geel baa la siistaa marka ka raalli noqo wixiina kaa gaaray reactionkii aan kaa bixiyey haddii arrinku been noqday haddii arrinkan uu soo bixi doonana koley aday aabba ku dhihi doontaa koley inaan war lakhlaqaysin waa dareemaya qof dhan
oo xaaladiisa aad la socon oo adig ku xiran oo hargeysan intaasoo fanaaniin joogto nambarada ahaayo ku dhehaynin ninka waa la soo deesho oo ka qayb galooya barnaamijkaas wax ma ka ogi xoogaa yar arrintaas inaa ka hoos bixi sidee ila tahay marka laakiin kuma qabanayno video hadda kusoo gaaro like saar haddii aa cusub tahayna subscribe dhe tali kulanteena nabadgelyo